Howlgallada ka dhanka ah ee maleeshiyaadka Al-shabaab ee ka socda gobolka Jubbada Hoose ayaa galay maalinkii lixaad iyadoo ciidamada Jubbaland iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay sii wadaan cadaadiska militari ee lagu wiiqayo awoodda kooxda. Howlgallada ayaa ka socda deegaanada Dhasheeg iyo Waamo, iyagoo isugu jira kuwa dhulka ah iyo duqeymo cirka ah. Wararka laga helayo furimaha dagaalka ayaa sheegaya in ciidamadu ay burburiyeen fariisimo iyo xarumo ay khawaarijtu u adeegsan jireen abaabulka weerarada iyo dhaqdhaqaaqyadooda. Sidoo kale, ciidamada ayaa gacanta ku dhiga hub iyo saanad ciidan oo ay lahaayeen kooxda, halka saraakiisha hogaaminaysa howlgalkan ay sheegeen in khasaarooyin culus la gaarsiiyey maleeshiyaadka. Taliska ciidamada ayaa xusay in howlgalladu sii socon doonaan ilaa laga xaqiijinayo amniga deegaanada howlgalku ka socdo, isla markaana laga ciribtirayo haraadiga khawaarijta ee ku sugan gobolka Jubbada Hoose. Howlgalladan ayaa qayb ka ah dadaallada lagu xoojinayo amniga iyo xasilloonida deegaanada Jubbaland, iyadoo ciidamadu ay maalmihii lasoo dhaafay kordhiyeen gulufka ka dhanka ah ee kooxda.